أحمد يا أمل والله ما نسهم ماليات أو دور سنة كورس كوسة أروس وين أي الله قبتي أهل يا أصحابه أي كون ددوك سدان هسي شيء دور سنة كدب نرشودي وحهرية خلافات بان أو سامية مركا جوركودي أمل وحي كعبانيسا إنه أحمد شعلين هلك أحمد وشاقي أما وشاقي إن أمل أذكتهي إن لفهمه وحي ربطه خلافات كلبدو ودحيي سبب ما يهين جعيل لآن balse waxay salka ku hayeen isfaham la'aan waxay labadooduba awoodi waayeen inay tarjuntaan oo fahmaan signaalada qofka kale oo bixinayo balka soo qad amal markay xanaaqdo afkay buuri jirtay wajigay xumaan jirtay iyadoo wadada u haysatay wada saxsan oo Axmed markaa xaqeedii kaga dhacsan karto intay noolayd waxay arki jirtay hooyadeed iyo dumarka kale oo afka buuraya oo ragooda markaa ku khasbaya inay raali galiyaan una sameeyaan waxay rabaan Axmed dhanka kale wuxuu ahaa nin jecel in ilkaha iyo hadalkaba la cadeeyo markuu arko in amal ay afka buurayso wuxuu weydiin jiray waxa ku dhacay jawaabtuna mar walba waxay noqon jirtay waxba isaguna markaa uu ka socon jiray afbuurka huruufka iyo waji bedelka wuxuu u qaadan jiray dabeecad ay u dhalatay amal oo iska indhatiri karo wuxuu iska qaadan jiray telefoonkiisa facebookana asxaabta ayuu kala sheekayn jiray taas oo markaa amal ka sii xanaajin jirtay yaa khaldan talo qofna labadooduba wixii lagu soo abaabiyay ayay habdhaqankooda markaa uu ku salaysnaa sidaa daraadeed labadooduba markaa waxay u haysteen inay sameynayaan wax saxsan oo aanan khalad ahayn waxaa khilaafka dhexmaray amal iyo Axmed lagaga badbaadi kari lahaa inay labadoodu isla fadhiistaan oo isku dayaan inay dabeecadahooda kala duwan ay fahmaan iskuna soo dhaweeyaan markaa dabeecadaha kala duwan ee labadoodu ay leeyihiin Axmed ayaa amal weydiin kara waxay afka u buurayso wajigana u bedelayso waxba markay ku jawaabto ayuu weydiin karaa inay ka xanaaqsan tahay wax uu sameeyay ama khalad uu markaa galay marka la gaaro gunta oo la ogaado sababta xanaaqana waxaa amal loo sharxi karaa oo Axmed u sharxi karaa inay adag tahay in la qiyaaso dareenkeeda oo ay habboon tahay markaa in amal dareemadeeda sida xanaaqa niyad jabka iyo dhaliishaba ay u rogto erayo oo ay ka dhigto hadal waxa fudud in dareemada marka erayo laga dhigo la fahmo waxaana sidoo kale adag in la garto in sababka afbuurku inuu yahay xanaaq ama xanuun ama sabab kale oo markaa amal qabsaday ama in Axmed laga xanaaqsan yahay ama in qof kale laba xanaaqsan yahay balse hadii la yiraahdo tusaale ahaan oraahda anigu adigan ka xanaaqsanahay si fudud ayuu qofka kale u fahmi karaa talaabana uga qaadan karaa markaa sababtii khilaafka ama xanaaq keentay Axmed iyo amal guurkoodu wuxuu ku badbaadi karaa amal oo dareenkeeda erayo ka dhigta iyo Axmed oo dadaal dheeraad ah ku bixiya fahamka habdhaqanka amal. Salaam alaykum.